waa maxay sababta nabiga sallallahu alayhi wasallam uu u diiday in biyo la cabo jamaaca kadib si toos ah? Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. walaalqaalay kusoo dhawow youtube channelkeena furaha khayrka haddana waa cusubtaa fadlan subscribe inoo saar sidoo kale like and share ta naga ilmaamina jazakumullah. wuxuu ahaa xabiibka sallallahu alayhi wasallam xilliga jamaaca. habka nabiga sallallahu alayhi wasallam waa habka ugu wanaagsani sidoo kale ugu caafimaadka badani oo leh raaxo iyo ilqaboobsi. wax waliba sallallahu alayhi wasallam habka loogu talagalay ayuu suubin jiray. maxaa yeelay jamaaca saddex arrin ayaa loo jideeyey. midda koowaad dawaamu nasli, yacni abtirskaaga oo sii jiro, sidoo kale bey'adda insaaniyadda oo sii jirto ilaa heerkii Allah subxaana wa tacaala uu ka burburin lahaa. had soo bixitaan ay kasoo baxayaan biyaha jirkaaga dhibayaan ee kugu jiraan ee shahwada ahi. midda saddexaad qadarta rabbi oo aad qaadatid, ilqabowsi iyo nicmada Allah subxaana wa tacaala ku siiyey oo aad ku raaxaysatid. middaas weeyaan midda nagaanaysa yowmal qiyaamo. wuxuu inoo sheegay xabiibka sallallahu alayhi wasallam jirka inuu saa'id u shaqaynayo, sidoo kale biyaha markaad cabtidna hal meer ay ku tuurayaan. waxay dhibaato iyo sidoo kale khalal u keeni kartaa qayb ka mid ah xibnaha. waxaana la fadilaa waqtiyahaas qaari inaad cabbin biyahaas. tusaale eegno maalmahani aan joogno, haddii aad orordo mise waxyaalo yar aad jimicsatid, waxay ku leeyihiin takhaatiirta cabbin biyo qabow, li'annu maxaa yeelay wuxuu dhibaato u keenayaa jirka iyo qalbiga sidoo kale. waana taas arinta ay ka qaateen xadiiska nabi sallallahu alayhi wasallam. nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam xabiibkeena khaliilkeena wuxuu waqti waliba inooga digaa waxyaalaha dhani oo xun, xitaa heerka jamaaca xitaa, li'annu waxa weeyaan caadooyinkiisa xabiibkeena wax waliba xun inuu nooga digo, wax waliba raaxo wanaagsan uu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam. allahumma salli wa sallim wa baarik calayhi wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciin. aynu ku salina xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam. waad ku mahadsantahay daawashadaadii wacan, aad iyo aad jazaaka allahu khayr. haddii aad wax ka faa'iidid insha allah khayr allah kaaga dhigo, haddii aad cilmi horaan u laheedna allah subxaana wa tacaala ku ziyaadiyo. walaal haddaan nagu cusubtahay subscribe inoo saar, sidoo kale noo sii share gare si aan u helna asxaab wanaagsan oo camal ah. like-tana hanaga hilmaamin haddaad saarin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.